قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر. النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadka oo dhammi soo mareen isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo uu soo maray isagoo xoog badan oo sulta iyo power haysto dawladdiisu xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo galaya uu soo maray waxay yidhaahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray ay imtixaanaad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma ay imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramayo ambiyada waad ku dhex arkaysaa maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuulah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen abu jahl iyo abu lahab iyo quraysh tolkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayoo lagu leeyahy waa kadaab waa beeraale ama waa saaxir ama waa caynkan lagugu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu isdhaahdo cid la hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa sixirroole iska dhaafa haddii adeerkaa ku daba galo bal adigu qiyaas adeerkaayoo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo uu leeyahy ka yaranagaa dhalayoo waa adeer baanu ahay waxna kama jiraan waxa uu sheegayo yacni cidhidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaasi kaa taago ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhiidhigaasi aanu dareemin cidhiidhi kastoo aad dareemto wax lagaga caafimaado alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamayaa alaa bidikri اllaahi tadma'inu اlquluub ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego nusuus badan oo qur'aan iyo xadiidiba way soo arooreen markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramaya bitafsiil salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leenna inaan maanta ka hadallo التصبيح faqad tasbiixu erayga macnihiisu waxa weeyaan subxaana allah markaad leeday ilaahay baad xumo ka hufaysaa bay odhan jireen culammada soomaaliya ama si kale haddaynu u tilmaamno waa tanziihu rabbi can الnaqaa'is waa ilaahay subxaana wa tacaala aad ka nasahayso ka fogaynayso ceeb oo dhan ilaahay uma cuntanta baad leeday waxa naqsiya oo dhamme ilaahay uma cuntamo ilaahay kamaalaadkuunbaa u cuntama